4 gawaadhida xamuulka qaada oo ay ka buuxaan hub iyo rasaas noocyo kala duwan isugu jira ayaa ka soo gudbay xuduudka maamul goboleedka Galmudug iyo ismaamul goboleedka deegaanada Soomaalida Itoobiya. Hubkan ayaa gacanta u galay shacabkii iyo reer miyigii gobolka Galmudug. Dhinaca kale, maamulka federaalka Soomaaliya ee Xasan Sheekh ayaa wasiir Cali oo ku hadlayay afka dawladda wuxuu sheegay taasoo ka dhigan in dawladda Soomaaliya ay hubkan mas'uuliyadiisa ay wax ka ogeyd, balse hay'adda NISA ayaa ka gaabsatay inay wax luga ku lahayd hubkan sida qarsodiga ah lagu soo geliyay. Dhinaca kale, wasaaradda amniga gudaha ee Galmudug ayaa sheegtay baadhitaan ay sameeyeen kadib ku ogaadeen inay wadayaashii gawaadhidan ay fariin qaldan siiyeen dadka deegaanka oo ay u sheegeen inay sidaan ateenooyinka warlalinta iyo qalab fudud oo ay leeyihiin shirkadaha isgaadhsiinta, taasoo sababtay in dadku ka shakiyaan islamarkaana weerar faragelin ku qaadaan gawaadhida iyo xamuulkii saarnaa. Inkasta oo aan si rasmi ah loo xaqiijin khasaaraha dhabta ah, haddana Galmudug waxay sheegtay in ay jiraan dhowr iyo 10 qof oo isugu jira dhinacyada dagaalamay oo ku geeriyooday goobta ay wax ka dhaceen. dawladda federaalka Xasan Sheekh ayaa dhowaan u dabaaldegtay qaraarkii cunaqabataynta hubka golaha ammaanku uga qaaday, balse dhacdadan ayaa ka markhaati kacaysa mas'uuliyad darida weyn ee dawladdu ku xadidi karayso inay hubka shacabka gacantooda uu si fudud u galo.